Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii taxana ahaa ee aanu ka sameynay silsiladii caanka ahayd ee Soomaaliyeed ee Guba, oo aanu go'aansanay inaanu dib u soo qorno, dibna u soo nooleyno, iyadoo cod ama maqal iyo qoraal labadaba ah, si ereyada qaar oo maqalkoodu adag yahay dhalinteena dambe ay u fahmaan. Haddaba ujeedada koowaad uguna muhiimsan ee aanu ka leenahay inaanu soo qorno cod ahaana usoo duubno silsiladda caanka ee Guba ayaa ah in dhalinteena dambe iyo dadka ay ku adkaatay inay fahmaan ereyada qaarkood ay helaan ereyadii oo qoraal ah, fahmaanna dhalatuska xagga af Soomaaliga ah ee ay adeegsanayeen gabyayaashii kala duwanaa ee ka qayb galay silsiladda caanka ee Guba, meelaha ay kala joogeen ama deegaamada ay kala sugnaayeen, ciidaha ay difaacayeen, iyo siday midba mid kale iskugu jawaab celinayeen, iskuguna weerarayeen. Haddaba annagoo marayna qiimihii ugu dambeeyey ee silsiladda caanka ah ee Guba ayaa maanta waxaa noo soo gudbinaynaa gabaygii 26aad, kaasoo uu noo tirinayo Maxamed Cumar Dage oo ogaadeen ahaa, kaasoo markiisii 5aad ku soo laabtay silsiladda Guba. Haddaba saad u fahanto qisada ka dambaysa gabaygan ama sheekada sababtay inuu Maxamed Cumar Dage tiriyo gabaygan, ayaa waxaa la wariyaa in jifo ka mid ah jifooyinka ogaadeen oo la yidhaahdo Abraahim iyo nimankii habar Yoonis ee Isaaq oo dagaal adag dhex maray. Dagaalkaas ayaa waxaa ku gacan sarreeyey oo guushu raacday, xoolo badanna ku qabsaday nimankii ogaadeen ama jifadii ogaadeen ka mid ahayd ee Abraahim, kaasoo aysan dagaalka kula jirin ogaadeenka kale sida Makaahil. Haddaba Maxamed Cumar Dage ayaa dagaalkan guusha ay ka gaareen wuxuu ugu hambalyeynayaa nimankii Abraahim ee ogaadeen, wuxuuna ku diganayaa nimankii dhulbaante oo dhul ka mid ah Caynaba laga haystay, wuxuuna gabaygiisi ku bilaabay sida tan: rag haddaad dakana kala qabtaan dil iyo qaad gaadhay, waa lagu digtaa maalintay xagashu daacdaaye, doollo iyo warkii bari ka yimid waan ku diirsadaye, waataan dabaaldegay markay soo dawariyeene, farxad baan la duubnaa intuu khayrku soo degaye, iidoor duliga gaadhay waa roob gu'oo da'aye, la durduuray doog iyo sidii daribta caanoode, daarood Ismaaciilna waa u doogsin galabeede, afartaa digtaan odhan jiriyo digashadaydii dheh, rag baa gabayga deelqaafiyee digasho waayeeldheh, darib iyo dibaax iyo ammaan diiran oo kulul dheh, malab dibnaha gaadhiyo waxaan badan ku diidayn dheh, deeqii ilaahay iyo raxmaad da'ay masaalkii dheh, diin iyo quraan waxaan ahayn hal ugu duugroon dheh, damiin hadalka waa lagu dacshee kaygu waa dahab dheh, tixdaa daayey oo waan dabree dood kalaan celine, gaaskii la soo dumay colkii duman ka soo duulay, dabka guutadii loo shidee waaye lagu daalay, dirka sugula caynaansho dalab duudda habar Yoonis, dunji habar magaalaba colkuu soo diyaargariyey, wareegada haddii lagu dilay halable daanteeda, goortuu ducaystee la yidhi daawo aan u yeelo, rag ilaalo loo diray haddii dibadda loo saaray, dalyaqaan la aaminay haddii dawga lagu joojay, degmo gebin ah beel dagan hadday dooyadii aragtay, dib salaan hadday igu cesheen hadal la doonayey, degdegsiinyo loo qabay haddii duhur la yaanseeyey, duqaydiyo ninkii culus haddii laga dawaareeyey, cirkoo dadan habeenkoo dam yidhi curashadii dayrta, duul nabad u soo galay hadduu cadow dul gowriiray, dildilaaca waa bari haddii weerar lagu daacshay, oo laga dareersaday wareeg dagalkii loo ooday, dirkii idiniyo hadday daawad ololaysay, waa darajadeedee haddii dumarku booyayey, dun carbeed la moodiyey cilaan rag isu dayn waaye, dab ayay yaa lahaayay markii daawo laga yeeshay, dabka qiiqa waxaa loo dhex galay ololkii dooyeyse, ogaadeenku wuu durugsanaa daayinkuu yahaye, dalka kama dhoweyn reer Subayr la ysku dilayaaye, Makaahilna uma duuldhannayn doodankii shalaye, danwadaage iyo reer cabdaa dayro ku ahaaye, dango lama ammaanee xirsow dirir Abraahiine, nasab bay ka doorteen inay dib ugu laabtaane, daliilkiyo waxaa loo cuskaday diinta xoogga lehe, dumbuqiyo markii la ysku riday danane dhowr qaad ah,
waatay dulaameen kuwii dabada aasnaaye nimankii adhaxaha daacsanaa damac ku beenowye waatuu waraabuhu dibxaday darabtii ii doore dibjiraha dhurwaagii ahaa diiqa ka ibaadiye dugaaggii cunaan ugu jeclaa dowladdii bahale dan baa marisay dayr oodan iyo xagarkii dooloode dariiqii qoraa iyo ardhiga looga dacareeye habar yoonis hawd inay degaan uma daymoodaane bari uma dabjeedaan haddii dayr xumaad dhaca ah dabra kale inay soo ceshaan diiday rubadiiye ku didsade duleedada raggii daadsanaa shalay ku dareersha furihii danood dila horweynkeeda hadduu duliso deeroy kobtii doogga uu u yiilay iyo doorku inuu soo didshaa loo dan leeyahay dalka gaamay doolada baxdaye dili ka dheeraatay haradan diraacdiya gudhaynin duraha jiilaalka mar haddaan la daandaaninayn dacarta dooggeeda oo dabin iyo laguu rogay degadii ood weyne dubaax weeye geeridu haddaan damug nidhaahnaaye allaylehe bagaa laysu dilay daahirow samanka xidid loo daryeeliyo bagaa darajo loo waaye dagaal aan qarsoonayn bagaa loogu kala duugay bagaa diriya daaroodba qiiqi uga duulay ayuu yidhi maxamed cumar dage oo markiisii shanaad ku soo laabtay silsiladda caanka ee guba haddaba maanta intaa haynoo joogto gabaygii 16aad ee silsiladda caanka ee guba kaasoo uu noo tirinayay maxamed cumar dage oo ogaadeenahaa markiisii shanaadna kusoo laabtay silsiladda caanka ee guba fadlan haddaad janaalku cusub tahay oo ay tahay markii koowaad aad soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarato gambaleelkana furato si aad ula socoto suugaanta kala duwan ee aanu soo wadno oo ka kooban silsiladihii dhex maray kabiyayaashii Soomaaliyeed